السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa wuxuu ku sheegay sifo qaaliya iyo dhaqan wanaagsan oo ay tahay inay yeeshaan dadka muslimiinta ah. sifada hadday ku sifoobaan oo dhaqan ay ka dhigtaan waxaa hagaagaya diintooda iyo adduunyadooda labadaba. qaala allahu subxaanaه wa tacaala: wاlmuؤminuuna wاlmuؤminaatu bacduhum أwliyaau bacd. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu sheegay dadka muuminiinta ah ee ilaahay iimaanka ugu nicmeeyey rag iyo dumarba inay isu yihiin xigto iyo walaalo. awliyaau bacdin, weliga waxaa la yidhaahdaa ka wax ilaaliya ee jecel ee u nusreeya u hiiliya ee wanaaggiisa ka taliya. qof kasta oo muumini qofka kale sidaa waa inuu noqdo mid iimaankiisu intuu gaadhsiisan yahay ku jecel, ilaalinayo diintiisa iyo adduunyadiisaba u ilaalinaya, naftiisu inay dhibaatayso ka ilaalinaya, kuwa kalena ka dhowraya oo ka ilaalinaya. inuu noqdo mid u hiilinaya qofka muslimkaayoo xaq ugu hiilinaya, siduu yihi rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam: unsur akhaaka daaliman aw madluuma. haddii laga gardaraya gardaradu ka celinaya, hadduu gardaran yahayna isagu gardarada ka qabanaya u ka joojinaya. inuu noqdo mid wanaagga qofka muslimkaa ka talinayo daacad u ah, naasixu ah. nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi sida uu wariyey muslim fi صaxiixi min xadiidi tamiim addaari: addiinu nasiixa. qulnaa liman ya rasuula allah? qaala lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati اlmuslimiina wacaamatihim. diintu sideedaba waa wanaag ka shaqayn, wanaag ka talin, daacadnimo. cidda daacad loo noqonayo ee wanaag lagula dhaqmaye koobaad waa ilaahay subxaana wa tacaala. waa in ilaahay amarkiisa la qaato, wuxuu ilaahay diidayna laga tago, rabbina la jeclaado oo la weyneeyo, la keliyeeyo oo la waxido. ilaahay kitaabkiisa ayay tahay in daacad loo noqdo, in la rumeeyo, in la raaco, in lagu dhaqmo, in qof waliba naftiisa iyo intuu u taliyo u ku maamulo. rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayay diintu nasiixo u tahay. waxay diintu amraysaa in wanaag lagula dhaqmo oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam daacad loo noqdo. wax wanaaga un rasuulka in loola yimaado, xumaan oo dhanna in laga dhowro, qowl iyo ficil iyo ictiqaad. waxay diintu nasiixo u tahay aimatu lmuslimiin, kuwa muslimiinta u taliya. wixii wanaaga waa in lagu adeeco, wixii xunna waa in looga nasteexeeyo oo laga waaniyo. waa inaan amar diida lagu samayn oon taladooda laga hor iman, oo ummadda aan fawdo la gelin. diintu waxay nasiixo u tahay guud ahaan dadka muslimiinta ah, shacabka muslimiinta ah, dadka raciyada loo talinayo. qofka diintiisu inta ay gaadhsiisan tahay ayaa nusxu lilmuslimiinna u gaadhsiisnaanaya. inaanu noqon qof naftiisa unu nool oo anaaniya oo tiisa un dhowrto ilaashada, ee uu noqdo qof ummadda muslimiinta uu ka mid yahay wanaaggooda ka talinaya, oo diintoodu inay hagaagto ku dadaalaya, adduunyadoodu inay hagaagto oo dhibaata aanay kusoo gaadhinna saasoo kale ku dadaalaya. diintiisu intay leeg tahay bay arrintaasi leegaanaysaa, iimaankiisu intuu gaadhsiisan yahay bay gaadhsiisnaanaysaa. qiimaha arrintaasi ay leedahay awgeed, nabiyuna maxamed calayhi الsalaatu wasalaam saxaabada qaarkood baycada ama ballanka uu la gelayu ugu dari jiray. wuxuu uhi jariir bnu cabdillaahi albajali, sida bukhaariya muslim ba ay wariyeen: baayactu rasuula allah calى iqaami الsalaa wa itaaءi الzaka wالnusxi likuli muslim. wa fii riwaayati muslim: washtarata calaya an ansaxa likuli muslim. nebiga ilaahay waxaan ballan kula galay inaan salaada oogo oo sakada aan bixiyo
qof kasta oo muslimana wanaagiisa diineed iyo adduunyaba inaan ka taliyo mar kale wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu igula ballamay oo shardi uu igaga dhigay inaan naasix qof daacad u ah oo wanaagiisa ka talinaya qofka muslimka inaan noqdo taasuu shardi iga dhigay si la yaab leh ayaa saxaabiga jariir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu uu xadiidkaasi ugu camal falay qof kasta oo muslima oo uu ku arko dayac diineed ama dayac adduunyo taladu arrintaa kaga bixi lahaa ayuu siin jiray isagoo oofinaya heshiiskii iyo ballankii ula galay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muslimku hadduu kuu yimaado oo isagu uu ku idhaahdo ila tali oo arrin diineed igala tali ama arrin adduunye igala tali inaad qishto aada khiyaamaysaa kuma bannaana waajibka ku saarani waa waxa u wanaagsan ee aad garanaysa ad aqoon u leedahay inaad u tilmaanto oo arrinka maslaxada u sarraysa danta diineed ama adduunye u sarraysa inaad u tilmaanto hadduu arrinku isugu jiro maslaxo iyo mafsado xumaan iyo wanaag inaad u faahfaahayso ood u kala dhigdhigto wuxuu muslim saxiixiisa ku wariyey inuu yihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun xaqa muslimku uu muslimka kale ku leeyahay waa lixdaa waxaa ka mid ah waida stansaxaka fansax lahu hadduu tala ku weydiiyo qofka muslimka ahi diineed ama adduunyo u nasteexee bimacnaa waxa ugu fiican u tilmaan nasteexadu maaha un qof xumaan samaynaya in xumaanta laga waaniyo qura nasteexadu intaa way ka macno ballaadhan tahay oo qofka muslimka wanaaggiisa diineed iyo adduunyaba in laga shaqeeyo taa waxaa ka soo hor jeeda yaa cibaad allah inuu qofku noqdo khaash lilmuslimiin mid muslimiinta xumaan iyo dhibaato uu og yahay u qarinayo u hadoodilaya waana min sifaati almunaafiqiin almu'minuuna nasaxa waalmunaafiquuna khashasha mu'miniintu waa dad daacada oo wanaag ka taliya munaafiqiintana qishkooda badan shayga wanaaggiisa dadka inay u muujiyaan xumaantiisana inay u qariyaan oo khiyaanadaasi ay kula dhaqmaan waa sifatu lmunaafiqiintaasi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qishka guud ahaan waa ka digay qishku diintuu galaa oo adduunyada dadka ayuu galaa faqaala calayhi salaatu wasalaam fima rawaahu muslim man gashanaa falaysa mina muslimiinta haddaanu nahay qofka nasteexadii waajibka ahayd ka taga ee qish nagula dhaqma oo shayga xumaantiisa naga qariyo wanaaggiisana noo muujiya oo si daacadnimo aan u dhaqmin qofkaasi annaga naga mid maaha dayru iga yahay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxa weeyaan huwa waaqicun fii kabiirati min alkabaa'ir dembiyada waaweyn ka mida ayaa qofkaasi uu ku jiraa annusxu lilmuslimiin wuxuu waajib ku yahay dadka madaxda ee dadka u taliya inay muslimiintay u talinayaan daacad u noqdaan oo diintoodu inay hagaagto marka koobaad waa waajibka u horeeya ay ka shaqeeyaan oo ay ka shaqeeyaan dadka inay wanaagga faraan xumaantana ka reebaan wax allaale waxa dadka diintooda waxyeelaya ama adduunyadooda xalaasha waxyeelaya in la dagaalamaan ilaa ay ka soo gaadhsiiyeen culimadu waa tusaale xaakimka muslimka inay waajib ku tahay dumarka tabarrujka samaynaya ee dharka qaawaneen xijaabka ahayn guryahooda kaga soo baxaya arrinta noocaasi inuu ka joojiyo kala dagaalamo ragga iyo dumarka isu imanaya isdhexgelaya waajibaadkiisa ayay ka mid tahay waa wax aada looga xumaado maanta in badanna arrintaa waan ku celceliyaa in madaxda muslimiinta in badan oo ka midi aanay uba haysan diinta inay mas-uuliyadi ka saaran tahay oo ay u arkaan un dadka adduunyadooda un in loo diray oo dadka diintoodaba aan loo dirin falimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatih qofka madaxda ummadda u taliya ayaa loo diro la raaciyey waxa koobaadee la raaciyey waa diintooda inuu ilaaliyo waxa diintooda suulinaya hal qof baa ha noqdee amaba se diintooda nuqsaaminaya ee dhimaya inuu la dagaalamo uu ka hortago meesha uu ka saara waajibaadkiisa ayay ka mid tahay
hadduu sameyn waayo in arrinka noocaasi waa ku dambaabaya inuu dadka wanaagga faro xumaanta uu ka reebo dadka muslimiinta waxa diintooda ama adduunyadooda waxyeelaya inuu si cad ugu sheego oo daacadnimo ah inuu qariyaano qishki ayay noqonaysaa oo wax u bannaan maaha nusxigu wuxuu waajib ku yahay dadka culimada ah ilaahay baa subxaana wa tacaala arrinka noocaasiya ballan kaga qaaday oo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ballan kaga qaaday latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunah xaqa ilaahay uu baray dadka inay u caddeeyaan oo aanay qarin nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ka xaqa uu garanayo ummadda u sheegi waaya oo iyaga oo arrin baadila faasida macsiyaa xumaana iyagoo ku jira oo aan garanahayn ka u sheegi waaya u tilmaami waaye arrinka noocaasiya uga aamusa isagoo awood u leh wuxuu sheegay maalinta qiyaame xakama naara qowlalada in loo gelin doono man su'ila can cilmin fakatamahu uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min annaar qofka cilmi la weydiiyo oo qariya maalinka qiyaame xakama naara ayaa qowlalada loo geliya su-aashu waa laba nooc su-aal qowla oo qofkii inuu su-aashii weydiiyo afka uu ka weydiiyo iyo su-aalu bilisaan ilxaal qofkii waad arkaysaa muslimka ahaa wax khaldan buu diin u haystaa shirki buu dul yururaa qubuuru caabudayaa bidcuu diin ka dhiganayaa macsiyuu dhex dabaalanayaa garanna maayo afkaba yaanu kaa weydiine ficilkiisu kugu weydiiyey waa waajib inaad u caddayso aad u sheegto haddaad garanayso haddii kale waxaad noqonaysaa khaash waxaad noqonaysaa mid qofka muslimkaa khiyaameeyey oo xumaan u hadoodilo u qariyay baad noqonaysaa culimada waxa waajib ku ah waa arrinka u darana shirkiga ay dadka inay u caddeeyaan dadka mushrikiinta shirkiga ku baaqaya dadka inay u hadoodilaan waa xaaraan waayo dadku way ku lugo-ayaan waxaa waajib ku ah siduu nebi maxamed mimbarkan maalin wala uu ka hadlaba bidcadu dalaale iyo lumitaan inay tahay siduu ummadda ugu sheegi jiray dadka waa inay u sheegaan dadka ahlulbidaca ah ee caqiidooyinka xun iyo waddooyinka leexsan ummadda ugu baaqaya waa inay uga digaan waa waajib sharciya oo saaran haddii kale khashaashiin bay noqonayaan man khashanaa falaysa mina ayay soo gelayaan waayo ummaddii baa ku lugo-aysa iyadoo aan garanahayn iyaguna arrinka noocaasiya way u qarinayaan dadka manaahijta xun ee munxarifkaa dadka dhiiggooda xalaaleynaya gaalaysiinaya ay og yihiin inay culimo uga dhigaan oo ummadda ay soo hor fadhiisiyaan oo sheekh hebelta ay u guraan iyaduna ma banaana hadda markuu kelidii yahay uu ka hadlaa wuxuu idhaahdaa hebelkaasi fikirkii khawaarijtu aaminsan yahi ama muslimiinta in loola dagaalamo aaminsan yahi ama gaalaysiin baa lagu ibtileeyey saasuu leeyahy laakiin ummadda markuu hor yimaado ummaddii buu khiyaamaynaya awood iyo geesinimo uu ku idhaahdo war ninkani waa luunsan yahay waa idinlu goynayaa oo wuxuu aaminsan yahay khawaarijta iyo jamaacaadka takfiiriga ee dadka laaya inay saxan yihiin oo mabda-oodu aaminsan yahay iska ilaaliya intaa awood uma laha yaqushu nnaas waa sheekh hebel baa muxaadaro inoo gelaya dadka ayuu u qarinaya oo aanu u sheegahayn nin ka mida shaykhda magaalada ayaa maalin wuxuu igu yidhi annagoo gaari wada saaran nimankaa dadka gaalaysiinaya ee dhiiggooda xalaashanaya ee jihaadka ku sheegaya wuxuu igu yihi waanu ka hadalnaa buuhi oo inay khaldan yihin baanu sheegnaa waxaan ku uhi sheekh waa saxe kor u sheega baan ku uhi kor u sheega majaalistiina gaarka idinku aad ku faqaysaan una ka sheegina ee ummadda u sheega ummadda waajib baa idinka saaran inaad ummadda diintooda iyo dhiiggooda iyo maalkooda iyo cirdigoodaba u ilaalisaan waa waajib sharciya weeye wax kastoo ilaahay diintiisa khilaafsan inuu khilaafsan yahay culimadu dadka waa inay u caddeeyaan haddii kale xakamaha naarta ayaa sugaya waxaa nusxigu waajib uu ku yahay dadka ganacsatada ah waajib baa ka saaran dadka muslimiinta diintooda wax diintooda wax yeelaya caqiidada dhaawacaya ama toosnaantooda iyo alla hoggaansankooda ka hor imanaya inay ganacsi ka dayaan oo ummadda ay usoo waaridaan uma banaana
nabigu calayhi salaatu wasalaam asnaam in la iibiyo bakti in la iibiyo khamri in la iibiyo waxba waa diiday waa wixii diinta wax yeelaya wixii caqliga wax yeelaya wixii nafta wax yeelayay intaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa diiday dadka muslimiinta wax caafimaadkooda iyo naftooda wax yeelaya inay ganacsatadu ka shaqaystaan uma banaana dawooyinka dhacay baa ka mid a ama tayadooda ay xun tahay ee qofkii loo qoray xanuunkii haye iyo bacteria jirkiisa ku jirtay aan waxba ka qaadahayn waxba aan yeelahayn ee qofku uu kasii darayo dawa dusha ay kaga qoran tahay 500 oo milyan oo daraagisaba ku jira isaguna uu og yahay shirkadii uu soo sameysay inuu ku uri 100 milyan igu shub si ay lacagtu uga yaraato dadkiina uu ku qishayo 500 dusha ugaga qorayo hada laa yajuus fi diin illah man ghashana falaysa minna bay soo galaysa raashimada xun ee liita dadka caafimaadkooda marka ama mustaqbalka wax yeelaya in dadka muslimiinta loo keeno loo soo waaridaana oo banaana waxa la iibinaya in been looga sheego lagu khiyaameeyo oo inta lagu soo sameeyo China ama Taiwan la yiraahdo waa Japan ama Sacuudiga waayirkan lagu soo sameeyay muxuu magaca u bedelaya wuxuu ogyahay labadu inay kala wanaagsan yihiin dadku kan ay jecel yihiin oo magacaan ay ku iibsanayaan oo kan magaciisa ugu qoraya uu tayo wanaagsan yahay kan uu keenana tayadiisu ay liidato man ghashana falaysa minna wa ninkii raashinka hoosta ka qoyay intii qalalay dusha soo mariyay ayaa rasuulku uu ku yiri man ghashana falaysa minna adna hadaad saayesho waad soo galaysaa ogow dadka ganacsatada ilaahay ka baqaan oo dadka diintooda iyo dhaqankooda dharka qaawan ee hablo ay gashanayaan ganacsata keena masaajidadana inagula tukanayaan waxay qayb ka yihiin qaawanaantii ilaahay u diiday ilaahayna wuxuu yidhi walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan khamriga dad baa keenaya muslimiin sheeganaya xashiishada qaar baa keenaya waddanka usoo waaridaya dharka xunxune inamada qaar ay gashadaan ganacsataa keena dee waddanka halkan laguma sameeyo haddii lagu sameeyana dee ka sameeyey dadka ayuunbuu ka mid yahay waxaa xunxun ee la daawanayo dad ganacsato ah ayaa aalaadkiiyo qalabka ay samaysteen ay soo martaa waajibku waxa weeye inay kala sifeeyaan oo inta dadka wax u taraysa ay soo daayaan inta kalena inay ka xidhaan baa waajib ku ah anigu waan ganacsanayaa hortay bannaan diintaadu ma ogole ogow qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam التجار فجار إلا من بر والصدق إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا dadka ganacsatada ahi waa dambiilayaal mid ilaahay ka baqo iibkiisa ilaahay kaga baqa oo runna ka sheega mooyaane maruu dadka been u sheegayo waa faajir mar haddaanu ilaahay ka baqahay subxaana wa tacaala fii bayci oo lacagun u eeganayo waa faajir maalinka qiyaamana isagoo faajir oo dambiilaa oo calaamadii dembigaasi ay ka muuqato ayaa ilaahay loo horkeenaya khalaa'iqda dhexdooda lagu fadeexadaynaya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله لما أنتم واجب إنك سارا ومدن الإسلام كانوا كم النهاي دين تيدا إيا الدنيا دي دبا waajibka noocaasiya in la ogaado oo lagu baraarugo weeye qofka muslimka ina maaha sida kufaarta mid naftiisa u nool halku dhagiisuna uu yahay tayda iyo maxaa iga galay qofka muslimka ahi waajib ilaahay inuu ka saaray dadka muslimiinta diintooda iyo adduunyadooda ayuu og yahay mar labaadka muslimiintu waa walaalihii oo waa naftiisa oo kale inama almu'minuuna ikhwa المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا المسلم أخو المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ولا لك أستاذ قدام قطه اللي بعتذا هذا جاي إلى لسه ولا لك ضلتين ولكن سنستذا هذا قط لسه سكوين بام سكوا إيمان كويد ولا عليه يواجب كوجو تهاي إن دونا جودا كت لسه اللي بعتذا هذا جاي إلى لسه
dadka muslimiinta ah ee hay'adaha gaalada ah ee waddankeena jooga ka shaqaynaya mas-uuliyad iyo waajib weyn baa saaran maaha inay eegtaan mushaharka yaroo qura haddii hay-addu ay dadka muslimiinta diintooda waxyeelaynayso si toosa ama si dadban waajibku waxa weeye arrinka noocaasi inuu ka hor yimaado cidda wax ka qaban kartana inuu u sheego inuu idhaahdo maaha anigu beriiskaygaan meesha ka shaqaystaa markaa badaha anigu isku geli maayo taasi maaha sifadii muuminiinta waajib waxa ku ah in iyaga dacwadda la gaadhsiiyo oo in lam tadcu tudca haddaana dadka u yeedhin aday ku yeedhayaan haddaad dadka wanaagga fari weydo xumaantay wadaan bay ku farayaan diinta islaamka haddaad ugu yeedhi weydo teeday kugu yeedhayaan noqo muslim islaamnimadiisa iyo diintiisa iyo iimaankiisa ku ictizaazaya oo awood ku leh iyo sharaf oo aan shilima adduunyo daraaddood aan isu dulaynahayn dadka macallimiinta dadka wuxu dhiga iyo kuwa maamula goobaha waxbarashada waajib baa ka saaran dadka muslimiinta diintooda waliba waajibkoodu wuu sii adag yahay oo inta badan dad yaryar bay wuxu dhigayaan waajibku waa inay naasixiin noqdaan oo waxaan ay dhigayaan dadka muslimiinta waa inay ka hufaan hadday diin dhigayaan iyo hadday culum adduunyo dhigayaanba oo waxa dadka wuxu taraya ay u dhigaan waxa dadka waxyeelaya diintooda dadnimadooda akhlaaqdooda iyo sharaftooda waa inay ka saaraan maaha inuu idhaahdo anigu waan ka shaqaysanayaa un waan ka shaqaysanayaa islaamkuma ogola muslim ilaahay u hoggaansan meel kastoo aad joogto inaad ahaato ayaa waajiba ku saaran u yahay wa aniibu ilaa rabbikum waaslimuu lahu ilaahay waa subxaana watacala waa in loo hoggaansamo muslimiin dhaba loo noqdo yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa diintan masaajidka un lala imanayo ee qofku uu tukanayo markuu masaajidka ka baxana aanay maamul ahayn ee sida uu doono u dhaqmaya maaha sidii ilaahay addoomihiisa uu ka rabay islaamnimada si dhamaystiran u gala ay khudu lislaama min jamiici jawaanibi caqiidadii islaamka ha laydinka helo cibaadadii ha laydinka helo dhaqankii iyo mucaamaladii iyo akhlaaqdii xil isa saaristii qofka muslimkaa laga rabay naasixnimadii ha laydinka helo qofka muslimka ah ee dadka muslimiinta wuxuu dhigay waa inuu naasix u noqdo xataa laga soo gaadho ardayga xalqadda fadhiya ee u arko inaanay munaasib ku ahayn inuu idhaahdo iskaga tago taasaa munaasib kugu aarado taa tag ama cilmigaasaa cilmigan ka horeeye kaygan darsigayan ka tago kaa tag maaha inuu idhaahdo un hay soo fadhiistee daa xalqaddu hay buuxsanto oo hay dad badato waa inuu naasix noqdo wey ka iskuulka ugu dhigaya saasoo kale waa inuu naasixu noqdo dadka muslimiinta wuxuu dhigayo cumuuman guud ahaan dawlad dadweyne waayeel iyo da'yar rag iyo dumar waajibkaynala gudbooni waa an nakuna nasaxatan lilmuslimiin waa inay noqono kuwa dadka muslimiinta ah wanaagooda ka talinaya oo wanaagooda ka shaqaynaya waxa u horeeya u ilaalinayaan ee u difaacayaana uu yahay dadka muslimiinta diintooda wanaagooda adduunyo ka aakhiro ku jiro badbaadadooduna ay ku jirto ilaahay tahayna waafajiyo اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد